ninku noolaa dalka Masar ayaa loo sheegay in dhammaan xididada wadnihiisa soo galay dhiiga keena ay dhawaan oodmi doonaan. waxa uu su'aalay dhakhtarkii in wax laga qaban karo oo la qali karo, balse waxa uu dhakhtarkii ugu warceliyay in aan xaaladiisa caafimaad halkan waxba laga qaban karin, isla markaana ay adag tahay xaaladdu. dhakhtarkii waxa uu kula taliyay in uu Yurub tago oo qaliin isaga sameeyo wadnaha. ninkii Jarmalka ayuu tagay. baaritaan kadib waxaa loo sheegay in xididadiisu ku dhow yihiin inay xidmaan. dhakhtarkii Jarmalka ahaa waxa uu u sheegay in xaalku yahay qaliin, balse qaliinka ka badbaadistiisu tahay 50%, yacni waad dhiman kartaa waadna noolaan kartaa, ayuu ku yidhi dhakhtarkii. ninkii waa uu ka naxay warkan, waxa uuna ka codsaday dhakhtarkii in uu 2 maalin siiyo si uu ugu laabto wadankii oo uu ehelkiisa iyo asxaabtiisa ugu dalbado cafis, maadaama uu qaliinkan ku dhiman karo. dhakhtarkii waa uu ka ogolaaday, wuxuuse u sheegay in uusan raagin. ninkii Masar ayuu yimid, isaga oo xaafadiisa ku soo socda ayuu arkay hooyo lafa ka urursanaysa meel u dhow meel hilibka lagu iibiyo. ninkii inta uu istaagay ayuu weydiiyey hooyadii, maxaad lafaha la urursanaysaa? carruurteyda ayaan u ururinayaa, ayay ugu jawaabtay. muddo 2 sano ah wax hilib ah ma aysan cunin carruurteyda oo aanan ahayn lafahan oo aan u kariyo, ayay sii raacisay. ninkii inta uu ka naxay ayuu u tagay ninkii hilibka iibinayay ay lafaha agtiisa ka guranaysay, ayuu ku yidhi, hooyadan isbuuc kasta way ku imaanaysaa si inta hilib ay doonayso, aniga ayaana ku siinaya lacagta. hooyadii waa ay faraxday, waxayna bilowday inay u duceyso ninkii, ilaahu caafimaad sii, ilaahu wax kasta uu jecel yahay u rumee. duco qalbiga ka soo gooday ayay hooyadii ugu duceysay. ninkii gurigiisa ayuu tagay, kadib waxa uu ku laabtay Jarmalkii. dhakhtarkii waa uu baaray qaliinka ka hor. markii uu natiijadii dhakhtarka arkay, ninkii waxa uu su'aalay, dhakhtarkee baa tagtay? dhakhtarba uma tagin, ayuu ku jawaabay ninkii. maya, waxaad qaadatay daawo furfurtay dhammaan xididadii wadnahaaga, dhammaan xididadaadina way isfurfureen, umana baahnid qaliin, ayuu dhakhtarkii ku yidhi ninkii waxa uu yidhi, aniga ayaa garanaya cidda i daaweysay. ilaahay ayaa i daaweeyey oo i bogsiiyey. ilaahay ayaa ii naxariistay kadib markii aan u naxariistay mid ka mid ah addoomihiisa. haddaba taasi waxay ahayd natiijadii laga dhaxlay caawinta dadka dhibaataysan.